shacabka Somaliland ba waxaanu halkan saaka u fadhiisanay anagoo ah gudida joogtada ee golaha wakiilada shir aanu kaga hadlaynay qoraal nooga yimid xafiiska xeeraalinta gudida joogtada waxa saaka halkan horta asal ahaan waxaanu ka koobanahay 12 xubnood 8 baa saaka joogay gudoomiyaha iyo gudoomiyaha ay gudoominayaan Ali Gabiley iyo ninka la yiraahdo Axmed Ducaale waxaanu u fadhiisanay arrin dastuuri ah oo xafiiska xeeraalinta waxaad maqlayseen maalmahan waxa la xiray xildhibaan golaha wakiilada kamid ah isagoo sita xasaanadii golaha wakiilada ee ummadda uu hayay taasoo xafiiska xeeraalinta iyo boolisku ay ku macneeyeen inay ku qabteen isagoo oo dambi faraha kula jira sidaad ka warhaysaan ama inuu ka wada warqabnana xildhibaanku goor habeena 12 habeenimo isagoo hurda oo reerkiisii carruurtiisii la hurda in gurigii loogu dhacay albaabka la fujiyay ciidanka boolisku tahdiid iyo inta la isugu daray la soo qabtay arinta lagu eedeynayay markaanu ogaanay ay ku eedeynayeen ay noqotay shir jaraa'id oo mar hore qabtay maalmo hore oo sii horeysay uu qabtay fikradiisana uu kaga hadlay anagu lama qabno kamana hadda ka hadlaymayno arintiisii ma sharci bay ahayd sharci darro ahayd namay hor ol kana hadlaymayno hadda arin aan u fadhina maaha waxa naga khuseysay oo kaliya xariga xildhibaanka iyo qaabka loo maray iyo dastuurku muxuu ka qabaa waxaad ogtihiin dastuurkeenu wuxuu inoo dhisay hay'ado dastuuri ah oo saddex ah oo isjeegareeya oo isbaalas gareeya oo is ilaaliya oo isku ilaaliya sharciga xukuumadda waxa ku ilaaliya dastuurka oo u dhisan inuu dastuurka ku ilaaliyo waxa la yiraahdo golaha wakiilada golaha baarlamaanka ayaa ku ilaaliya wuxuu dhisan yahay hadii talaabo khilaafsan golaha dastuurka qaranka inay tilmaamaan hadii ay qaadanayaan inay ku taageeraan oo wax weyn ay waafaqaan oo la waafaqaan iyadoo taa aanu ka duulayno waxaana la soo weydiistay xafiiska xeeraalinta noo soo gudbiyay qoraal uu nagu leeyahay waxaan idin ogeysiinayaa inaanu xidhnay xildhibaankaas oo hadda xabsiga ku jiro isla markaana ay horgeeyeenba isagoo xidhan oo katiinadaysan maxkamadda ay horgeeyeen xafiiska xeeraalinta iyo booliska oo wada socda waxaanu idinka codsanaynaa macnaha ogeysiintaas aanu idin siinay ogeysiintaas waxay ahayd xafiiska xeeraalintu marka la qabanayo xildhibaan in loo maro dariiq uu dastuurku tilmaamay oo qodobada 49 iyo 79 ayaa inoo jideeyay wixii xubin baarlamaanka ah oo dambi gasha laga yeelayo waxa weeyaan waa laba siyood haddii uu dambi faraha kula jira markaas waa la qabanaya isagoo wax dilaya isagoo oo bangiga jabsanaya waxa weeyaan waa la qabanaya dambiyada caynkaas oo kala ah waxa weeyaan waa falagaransa waa dambigii gacanta kula jiro dambi in gacanta lagu jiro waxa weeyaan qofku waa red handed waa lagu wada wax la yaqaan waa wixii uu qaaday oo lagu hayo oo gareeraha lagu hayo iyo falkiisa oo gareeraha lagu hayo xafiiska xeeraalintu warqadda ay noo soo qoreen laba ujeedo ayay xambaarsanayd ujeedada koowaad waxay yiraahdeen waxaan ku qabanay ninkaas isagoo dambi gacanta kula jira iyo arinta labaad oo ah waxaanu idii sheegaynaa inuu dambi ninkaasi galay aanu baarayno lama baaro falagaransada waxa weeyaan waa wax cad oo qofka lagu qabto ma aha arin la baaro taasi waxay noo cadaysay inaanay jirin wax dambi ah oo markii la qabtay xildhibaankaasi aanu gacanta ku hayn annagoo taa ka duulayna dastuurku wuxuu leeyahay golaha wakiiladu marka ay helaan weydiinta ama codsiga xafiiska xeeraalinta iyo cidda dambiga ku oogaysa ku eedeynaysa xildhibaanka waxay ka hubinayaan in la maray talaabooyinka laga qaaday xildhibaanku inay ahaayeen kuwa toosan annagoo taa ka duulayna waxaanu eegnay wixii tallaabo ahaa ee ilaa maanta la qaaday ee xukuumadda ciidanka booliska iyo qaadeen xeeraalintu inay ahaayeen kuwa toosan oo dastuurka waafaqaya markaanu darisnay waxaa noo soo baxday inaanay ahayn tallaabo sharciga waafaqsan oo dastuurka waafaqsan habkii xorriyadda looga qaaday ilaa maantana lagu hayaa ay tahay sharci darro talabaad waxaa la horgeeyey isaga oo xidhan oo xasaanadii qaranka uu siiyey sita oo dastuurkii xasaanadu siiyey xambaarsan waxaa la horgeeyey maxkamadda gobolka waxaanu ammaan ballaaran u jeedinaynaa oo runtii ah wax lagu diirsado go-aanka ay ka qaateen hay'adda garsoorka maxkamaduhu ka qaateen xeeraalintu hay'adda garsoorka ku jirta gaar ahaan maxkamadaanu leenahay talaabada ay ka qaateen oo ah annagu awood ma lihin qof sita xasaanadii qaranka inaanu warqad qabasho u jarno waxa weeyaan ama hayntaysi aanu ku xalaalayno awood uma lihin sidaa darteedna dee waxa weeyaan farahay ka laabteen waxay ahayd oo sida dastuurku tilmaamayo aad ka war haysaan iyadoo la aqriyayo qodobka
49 79 96 iyadoo la aqriyayo maxkamadda golayaasha qaranka la saaraa waxay dhisantaa waa maxkamad jirta oo dastuurka ku magacaaban waxay automatically u dhisantaa marka xasaanadda xubinta laga qaado xubinta xasaanadda marka laga qaado calaaduul waxaa dhismaysa maxkamad la yidhaahdo maxkamadda sare cadaaladda waa guddoomiyaha maxkamadda sare 4 xubnood oo ka tirsan ee maxkamadda sare iyo 4 xubnood oo ka imanaysa labada gole ee baarlamaanka oo ay soo magacaabaan maxkamaddaas la horgeynayaa xubinta baarlamaanka ah marka laga xayuubiyo xasaanadda taasaa xabsigiisa xalaalaysa taasaana dhageysata dambigiisa xeer ilaalintu qodobadaas oo dhan indhahay ka qarsatay way ka gaabsatay inay ilaaliso oo maadaama ay ahayd xeer ilaalintii qaranka sidaa daraaddeedna waxay noo keentay warqad aan wax caddayn ah oo inuu ninkaasi dembi faraha kula jiray caddaynaya aan xambaarsanayn sidaa aawadeedna waxaanu ka qaadanay waajibkii dastuuriga ahaa oo ah inaanu diidno oo aanu nidhaahno sababtii lagu xidhay ilaa maantana loo hayaa xildhibaankaasi dastuurka ma khilaafsana xukuumadda ma waafaqsana xukuumaddana waxa weeyaan waxaa waajib ku ah iyadoo ay raacayso dastuurka inay u hoggaansanto go-aanka golaha waayo guddida joogtada ahi maanta waxay wakiil ka tahay goloweynihii go-aanka aanu maanta gaadhnay waxaa gaadhay goloweynihii goloweynaha waxaanu horgeyn doonaa go-aankii aanu gaadhnay markuu furmo maalintaasaanu hordhigaynaa waxa weyaan isagaa ansixinaya ama diidaya oo dee waa howltaale lakin waxaa automatic ah maanta laga bilaabo saacaddan anu idinla hadlayna laga bilaabo xildhibaankaas haddii dastuurkii dee qaranka oo kan ah aynu dee ixtiraamayno laga bilaabo hadda in xorriyaddiisa loo celiyo waxaa kale oo muhiima dee dastuurku waa waxayna kala ilaalinaya qof waliba wax ku yahay haddii hay-adaha fulinta u hoggaansami waayaanna waxa weeyaan waxayna ka imanaysa dee masiibo weyn oo muwaadinkii haddii qofkii xilka hayey xasaanadda lahaa oo halkaa maraya waxaa la hubaa kii aan xasaanadda lahayna inuu dee mushkiladiisu ay u taallo sidaa daraaddeed madaxweynaha iyo xukuumadda waxaanu ka codsanaynaa ciddii dastuurka ku geftay ee qodobadaa ku tumatay intay sharciga la hor keena iyadana oo dee ay tahay in iyadana la maqlo ay maqasho xukuumaddu